Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka xilidan oo kala aad ka daawataan warbaahinta Naafici Show. Waa 10ka bisha shanaad ee May 2026 maalinimo Axada. Ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn. Ruushka ayaa bilaabay in uu agab military oo aan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn gaarsiiyo iyo sahay kale oo dhinaca badda ah dalweynaha Iran isagoo adeegsanaya badda Spain taas oo kamid ah waxyaabaha aan waxtarka lahayn ka dhigaya go'doominta dekedaha Iran ee ku hareeraysan maranbiyoodka Hormuz una saaray Mareykanka iyadoo howlgallada kormeerka uu sameynayo Mareykanka ay ugu baxayso malaayiin dollar balse aysan saameyneynin xanibaadda ka dhanka ah dalweynaha Iran. Baro luqadda Ingiriiska maanta adigoo kalsooni sare isku qabo. Hadda waxaa la joogaa xilli Ingiriisku uu noqday luqadda ugu muhiimsan ee lagu shaqaysto waxna lagu barto laguna safro adduunka oo dhan. Haddii aad ku riyoonayso mustaqbal ifiyo oo furan, barashada luqadda Ingiriiska waa furaha kuu horseedaya guul iyo fursado aan xadidnayn. Macadka barashada luqadaha ee Blue Screen Online wuxuu ku hayaa koorsooyin luqadda Ingiriiska oo ka kooban sida bilow, dhexdhexaad iyo dhammaystir. Koorsooyinkan waxaa si xirfadaysan kugu baraya macallimiin xirfad leh iyadoo xoog lagu saarayo ku hadalka luqadda Ingiriiska si kalsooni leh, qorista iyo akhriska si habboon oo sax ah, maqalka iyo fahamka luqadda si qoto dheer, xirfadaha nolosha iyo shaqada ku salaysan. Haddaba haddii aad danaynayso barasho barwaaqo ku horseedo ka bara Blue Screen Online oo guji calaamadda WhatsApp ee hoose. Warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in Israa'iil ay saldhig military oo qarsoodi ah ka samaysatay saxaraha dalka Ciraaq iyadoo ujeedka saldhigan loo dhisay ay ahayd inuu taageero weerarada cirka ah ee Israa'iil ka geysanayso bartilmaameedyo ku yaala gudaha Iran sida uu maanta baahiyay wargeyska Mareykanka ka soo baxa ee The Wall Street Journal oo soo xiganaya saraakiil Mareykan iyo ilo kale sida ay sheegeen ilahaas. Israa'iil waxa ay saldhigan ka dhisatay wax yar ka hor intii uusan bilaaban dagaalka Iran dhamaadkii bishii Febraayo ee sanadkan aan ku guda jirno ee 2026 si uu noqdo xarun saadka iyo taageerada ciidanka cirka ee Israa'iil. Warbixintu waxa ay sheegtay in saldhigan ay ku sugnaayeen ciidamo gaar ah iyo kooxo samata bixina balse bishii Maarso wuxuu uu ku dhawaaday saldhigan inay ogaadaan ciidanka Ciraaq kadib markii nin xoolo dhaqato ah uu sheegay in uu arkay dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo diyaarado nooca qumaatiga u kaca oo ku dagaya meel fog oo saxaraha ka tirsan. Xilligaa waxa Israa'iil duqeymo ku joojisay ciidanka Ciraaq oo saxaraha baaritaan ka waday markii hal askari oo Ciraaq ah ay duqeynta ku dhintay iyadoo duqeynta ay dowladda Ciraaq ku eedeysay in uu fuliyay dowladweynaha Mareykanka. Dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga Imaaraadka carabta ayaa sheegtay in nidaamyada difaaca hawada ay ka hortageen oo ay wax ka qabteen 2 diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo laga soo riday dhinaca Iran. War ay soo saartay wasaaradda waxaa lagu sheegay in difaaca hawada ay si degdeg ah ugu jawaabeen isla markaana ay 2 diyaaradood si guul ah u joojiyeen ka hor inta aysan gaarin bartilmaameedkooda. Wasaaraddu waxa ay intaas ku dartay in xaaladda guud ee dalka ay tahay mid la xakameeyay isla markaana aysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay dhacdadaas. Dhinaca kale war kooban oo ka soo baxay wasaaradda sirdoonka ee dowladda Iran ayaa maanta oo Axada ku dhawaaqday in la xiray xubno ka tirsan kooxo la sheegay inay la xiriir lahaayeen hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad iyo sidoo kale wakiilo doonayay inay xog ka soo gudbiyaan saldhigyada military ee gudaha dalka Iran oo ay u gudbiyaan awoodo shisheeye iyadoo howlgalkaas laga fuliyay 6 gobol oo dalka Iran ka tirsan.